السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله قيمة بدن كسر هذا وافرت بيش شوال سنة كون أفر بقول فرتني يتضبط تاريخ ذا هجرية ذا وهبين ما سنين ثلاثة أي سوق ليس وأنا سدح إلى باطن كبيش سدحات سنة كلا بكون لح إلى باطن قد بدأ أقوى وين برنامج كنا هبين مع وحكم ذا سعودية أي ورع علوس كصاري حالة دبرة ده دولة السعودية وحاي تلمام يسائن آيه هذا أمانك أي كتشن دونتو وحي هذا كدم بيو يسنسكوها لينكرين مرايكن يرهق البيت معلومات عجيبة يوربحنا رنتها كسابسن أي نسلي دونا قد بدأ سيدو كلام برنامج كيدن كوين إيران وحكم ذا إسرائيل وحا أي مانت بربرسي ويرر كأيكو دي جدها دلوينها ريال لبنان buundadii ugu muhiimsanayd ee isku xiraysay magaalooyinka dalka Lubnaan gaar ahaan koonfurta dalkaasi magaalada Beirut iyo Tyre warbixin arrinta ku saabsan ayaan idiin hayaa tani waa dhacdo culus oo maanta bariga dhexe ka taagan qodobada sidoo kale aanu eegi doonno waxa iyana kamid ah afayeenka Iran militarigeeda oo ka hadlay caawa dagaalka socda iyo sidoo kale warkii ka soo yeeray Donald Trump waxa uu leeyahay Donald Trump waxa uu ku qalday dagaalka Iran filimada Mareykanka ay soo saaraan ee Hollywoodka laakiin wax ka duwan ayaa hadda haysta buu leeyahay waan idin hayaa iyadoo faahfaahsan qodobada sidoo kale aanu barnaamijka ku eegi doono iyana waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu ayaa lagu waramayaa sida uu qorayo wargeyska Times of Israel iyo wargeysada kale ee ka soo baxay Israel in uu kan iyo jabay eedna dusha ka saaray sirdoonka Israel gaar ahaan Mossad oo uu sheegay inay siiyaan macluumaad qaldan oo ku saabsan dagaalka waxa uu sheegay inay rumoobi weysay wixii dhan ay u sheegeen laakiin wax kale ay socdaan maxay tahay wax kala socda ee uu ka cawanaya ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu qodobada iyo kuwa kale ayaanu barnaamijkeeda ku hayn dowladda real estate waxay ummadda Soomaaliyeed ugu bishaaraysaa fursad qiimo badan oo dalka gudihiisa loogu diyaariyay dhismo weyn oo laga dhisay magaalada Muqdisho ay wuxuu leeyahay parking gaarigaaga ay u wataan parking weyn oo casri ah ayuu leeyahay dhismahan wuxuu leeyahay qolal aad u waaweyn shan qol shan musqulaad saddex qol kamida waxa ay yihiin master rooms macnaha musquliyi baa ku dhex yaal sheekh maxamed maxay kale noo diyaarisay dowladda real estate waxay diyaarisay ma sha Allah ugu horeyn biyaha xataa biyo filtraysan haba yaraatee ma jiro yani jikada waxyaabo cajiib waxa kamid ah in ay leedahay liiska ka dhisa hal jikooyin casriga ah waxa lagu diyaariyay madraso cajiib ah ogowna waxay ku taala banaadir qaybta ugu bulshada badan ee hadday waqti isbaariga ku yaala ereadaasi sidaas oo kale jaamacaadka iyo iskuuladii sidaas oo kale suldaanka waxay leedahay supermarketkii yani hatta ma bixin banaan holalka midka ugu weyn walking closet uu leeyahay oo armaajadii dadka oo qol ah aad xamalaysa markaa musuusha u socday yani waxaan hore loo arag xamar laga arakin ee rabnaa insha Allah taala inaad heshaan fursadda ka faa'iideysta waxaan kala soo xiriiri kaysaan namarada soo dhawaada markale magacaygu waa Mustafa Ali halkan waa kow Somali Media sida uu qorayo telefishinka ama uu warbixin ka diyaariyay oo uu wareystay mid kamida ubarada Sacuudiga gaar ahaan cilmi baaro weyn la taliyana la boqortooyada Sacuudiga waxa uu leeyahay ninkani sida telefishinka Memory TV oo ku wareystay dawladda Sacuudiga waxa ay dib u eegis ku sameynaysaa amaankeeda waxa ay dib u eegis ku sameynaysaa xiriirka ay la leedahay Mareykanka dhanka amaanka oo waa uu ku fashilmay Mareykanka in amaanka dalalkii khaliijka uu wax ka qabto dhammaan heshiisyadii lala galna way shaqayn weysay waxa uu sidoo kale leeyahay dagaalkan Mareykanka nagama talagelinin oo de Sacuudiga marka wuxuu u baahan yahay inuu dib u eegis ku sameeyo dhammaan heshiisyadii uu la galay tani waa arrin kale oo haysata maanta Mareykanka waana qasaare kamid ah qasaaraha uu Trump geliyay baa la leeyahay dawladda Mareykanka dhaqaalaha ugu badan meelaha uu ka soo galay waxa ay ahayd dalalka khaliijka hubkii laga gadi jiray amaankii laga gadi jiray amaankii loo sheegi jiray sirdoonkii la oran jiray waxba la idinka siinayaa oo macluumaad baad helaysaan satellite ka la idinka caawinayaan nidaam difaac baa helaysaan wixii oo dhan hadda waxa banaanka timid in waxba aysan ka jirin waxa kale oo dalalka khaliijka u cadaatay in Mareykanka ahmiyadda ama ihtimaamka ugu weyn uu siinayo Israel oo nidaamyadiisa difaaca ugu badnaa in uu dhigayo dhanka iyo Israel si kastaba ha noqotee Mareykanka maxay leeyihiin Sacuudiga marka laga hadlayo xaaladda hadda taagan balaaniyar ku maqshiyo professor kan reer Sacuudiya oo ahna sidoo kale baare dhanka cilmi baarista la taliyo oo ah boqortooyada Sacuudiga هذا وكيري دجالك يجوان كمستقبل كسعودية. مفهوم منظومة الأمن الخليجي بشكل عام والعلاقة مع كل الأطراف سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أي أطراف أخرى لها تواجد عسكري في المنطقة لأنه كان الهدف من وجود هذه القواعد العسكرية هي توفير الحماية والأمن إذا احتاجتها دول الخليج لكن إذا هذه القواعد وهذا التواجد لم يوفر الأمن والحماية التي تواجدت فربما دول الخليج تجد نفسها في إعادة ترتيب العلاقة
لأنها لم تستأذن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حينما قامت بهذا العمل، أو في ال 12 يوم السابقة في حرب ال 12 يوم دول الخليج أخذت موقف رافض الاعتداء على إيران. وهنا أقصد بأنه ليس الاستغناء عن الولايات المتحدة أو يعني ترك أيها، ولكن تحديد نمط العلاقة، بمعنى الولايات المتحدة هذه المرة الثانية التي تقوم بأعمال عسكرية دون أخذ رأي المنطقة ودون التأكد من أن هذه المنطقة لم تكن. intaasi waa qayb ka mid a waraysigii lala yeeshay cilmi baaraha la taliyaha dhanka ammaanka dowladda Sacuudiga boqortooyadeeda oo BBC ay waraysi la yeelatay telefishinka Memari TV-na uu soo qaatay. Waxa uu sheegay in ay Sacuudiga boqortooyada ammaankeeda ay dib u eegis ku sameynayso kadib markii Mareykanka oo xitaa wax talaa ka siin waayay kama talagelin qayb kama noqolin ayay leeyihiin. Macnaha dalalkii khaliijka weyn iyo jabeen niyadii ay u hayeen ammaanka Sacuudiga iyo ammaankii iyo ballanqaadkii Mareykanka ayaa meesha ka baxay. Waayahay saaxiibada qiimiga loo qaybta markaynu meesha ugu gudubno waxaynu toos u galeynaa qodobka xiga barnaamijka afayeenka ciidanka dalka Iran gaar ahaan Qatim al-Anbiya Ibrahim ayaa caaw mar kale soo hadlay markan uu ka duwan yahay hadaladiisa hore. Ninkan waa nin cajiiba, waxa uu leeyahay waa afka Farsigu ku baxaya marar badan walaalaha waxay weydiiyaan iyo af Hebrew ma taqaanaa, Fariska ma taqaanaa, Faransiiska ma taqaanaa, baaqa af taqaanaa laakiin qasab ma aan maanta ila af walba taqaanid ila af badan taqaano way wanaagsan tahay. dabcan dhowr luqadood aan ku hadlo way jirtaa, laakiin af walba ma garanayo sida kan yuhuud oo kale, farisi oo kale. kelmado waa laga yaabaa inaan garanayo, laakiin inaan garanayo ma sidee marka ku turjumaa. waxaanu soo qaadanaa subtitle wax la dhaho, qoraalka ayaa Carabiga ama Inglisha. meesha marka waxaa ka fahmaysaa ujeedka, macnaha waaba la turjumaaba. midda kale maanta AI jirto waa u diraysaa luqadda aragtaa lagu turjumaya, waa la hormaray system waxa jira xitaa marka geliso luqadda arabtu kugu bedelaya. Trump of Somali ku hadla lagu keeni karaa. macnaha adduunyo waxaan joognaa digital age la dhaho oo horumarsan. artificial intelligence ga aqliga macmalka ayaa mararka qaar dadka caadiga aqligooda ka cajiibsan. aan u soo noqon afayeenka ciidanka ilaalada Iran ninkan Ibrahim dagaalka meel weyn buu uga jiraa bay leeyihiin dadka arrimahan ka hadla. wuxuu leeyahay Trump shan maalin dagaalka joojinaya iyo duqeynta Iran kaabayaasha dhaqaalaha joojinaya iyo waxaas iska days dagaalka qiro inaad ku qaldantay. dagaalkan wuxuu kula noqday leeyahay filmaantii Hollywood-ka oo kale. Hollywood-kile waa wax aan qiyaaliyoon jirin oo la jilo, buur laga booday, dhagax laga boodaa, wadamo la duqeynaa, dagaal oo maaragtay dagaalka loo yaqaano dagaalka in ciidamada isduqeynayaan waxaas ba u moodaale. laakiin ma ahan dagaalkan, kani waa dagaal dhab ah. macnaha adaa laga rabaa, adaa bilowday xal baa laga rabaa. Iran ma joojinayso dagaalkan. bal ila daawo waxa caawaysta Donald Trump. بسم الله الرحمن الرحیم. سیاستمداران خبیث و کودککش آمریکایی صهیونی در فاصله دور از منطقه لفاظی می‌کنند و نظامیان و سربازان خود و مردم مسلمان منطقه را سپر بلای سیاست‌های غلط خود کردند و به طور مستمر ایران قدرتمند را تهدید می‌کنند. شما در قبال مردم آمریکا باید پاسخگو باشید، زیرا با سیاست‌های غلط شما سربازان آمریکایی روزانه در جنگی که راه انداخته اید قتل عام می‌شوند و در خون خود می‌غلطند و شما از اطلاع رسانی آمار واقعی کشته‌ها و مجروحان به ملت آمریکا و خانواده آنها پرهیز و اخبار جنگ را به شدت سانسور می‌کنید. اگر ارتش جنایتکارتان آمار واقعی کشته‌ها و مجروحان را درست و به موقع اطلاع رسانی کند، ضمن از هم پاشیدن شیرازه ارتش بزدل و ترسوی شما و عدم تبعیض. waayahay taasi waxa ahayd hadalkii ka soo yaray afayeenka ciidanka Iran gaar ahaan Qatim al-Anbiya. waaya qaybta xiga barnaamijka waxaynu toos u galeynaa Israa'iil waxay burburisay buundo muhiim ah. wali waxa socda weeraradii Israa'iil ee ku waday koonfurta Lubnaan, laakiin markan gantaalada Iran iyo duqeynteeda waxay garaacayeen buundadan oo nolosha dadka Iraniyiinta dadka Lubnaaniyiinta hali hada gaaran dadka reer Lubnaan ee koonfurta Lubnaan ku nool waa buundo u ahayd strategic. Israa'iiliyada waxay ka cabanaysay kaabayaasha dhaqaalaha shacabka goobaheed inay Iran beegsanayso. maanta arintan waxay ku tilmaameen qubarada shuruucda caalamiga Israa'iil dambi dagaal kale oo weyn inay gashay.
dalka reer Lubnaan dhuuntii ayay ka jartay qaar badan oo ku nool malaayiin ku nool koonfurta gaar ahaan magaalooyinka isku xiro Beirut iyo Tyre buundadan ay jiraan waa buundo la yiraahdo Litania webiga Litania River ay dul maraysay webiga Litania ay dul martaa waa meesha cuntada raashinka nolosha ay u soo marto dadka reer Lubnaan gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Tyre waxaa la kala jaray marka labadan magaalo dadkii hadda waxaa ka go'ay cuntadii waxaa ka go'ay saliidii sokorti wax walba nolol maalmoodkoodii muhiim u ahaayeen waxayna ku tusaysaa Israa'iil inaysan u socon oo kaliya koox ay la dagaasho laakiin inay rabto inay dhuun qabato dadka reer Lubnaan caawa marka Hizbullah iyadana waxay laba jibaartay gantaalada ay ku wada waqooyiga waxayna iyaguna ballan qaadeen meel sidaas oo kale Israa'iil u xanuunjiso inay ku dhufanayaan Iiraanna waxay ballan qaaday in ay u aari doonto dadka reer Lubnaan dagaalku sii kululaanaya waxaana hadda uu noqonayaa dagaal khatartiisa wato xitaa dawladihii gobolka marka hore fududeysanayay dagaalkan ma fududeysan karaan intan ka badan ayaa la leeyahay Mareykanka waa uu ku qasbaya dagaalka inuu degdeg u joojiyo ay leeyihiin khubarada Israa'iil iyo Mareykan waxa looga fadhin doonaa in ay dhisaan bundadan laakiin Netanyahu iyo kooxdiisa oo isfidin wada oo qorshaha Israa'iisha weyn ay ku jirto haddii bundadan la jaro waxay ku fakarayaan dadka ku nool Tyre in ay qaxaan dadka Lubnaan koonfurteeda ay noqoto meel lama degaana bal waxaad ila daawataa warbixinta laga diyaariyay xaaladda maanta ay ku sugan yihiin dad waynaha reer Lubnaan gaar ahaan Al Jazeera ayaa arrintani warbixin ka diyaarisay. As we make our way towards the south of Lebanon, there are no signs of life. We are on what used to be the main highway to the city of Tyre. But we've had to make a diversion to the coastal road. Israeli strikes have made that route impassable. They've also disrupted lives. This is the only route that can be used to leave or reach the southern city of Tyre after the Israeli army destroyed the bridge on the main highway. The Israeli military is warning worse is yet to come. The military saying that they are preparing to deepen its ground offensive in southern Lebanon and its airstrikes against Hezbollah. On Sunday, Israel hit the M51 highway after declaring all bridges over and south of the Litani River targets. The destruction of the Qasmiya Bridge cut off the easiest route to the western sector of southern Lebanon, making it more difficult for people who still live in Tyre and southern villages to survive. Israel says Hezbollah used this to bring in weapons and fighters. For those who still haven't left their homes in the area, this was a critical lifeline to bring. taasi waxa ay ahayd warbixintii Al Jazeera ay ka diyaarisay burburka gaaray buundadaasi qayb kamida waaya warbixintaas iyadoo dhameystirna barta Telegramka Kow Somali Media ayaad kala socon doontaan saaxiibada qiimiga lahow waliba qaybta maaragtay wararka iyo barnaamijyada aan soo dhigno oo linkigeeda hoose aad ka arki doonto dagaalkan waa dagaal halistiisu wato oo dadweynaha reer Lubnaan ay khatar badan hadda dareemayaan waana arrin muujinayso sida dagaalka uu u noqonayo dagaal halbowlayaasha la iska taabto qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaynu ku soo xireynaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil waxa ka soo yeeray maanta warweyn kaas oo ku saabsan in uu ka niyad jabay sida ay u dhaqmeen sirdoonka Israa'iil gaar ahaan waxa ugu yeeray Mossadka Israa'iil waxay nala wadaageen buu yiri xog ku saabsan in haddii la dilo madaxda Iiraan uu rejiimka burburi doono nidaamka Iiraan uu burburi doono regime change inuu dhacana ay aad u fududahay shacabka Iiraaniyiintuna ay kici doonaan laakiin waxa leeyahay hadda arrintaas Times of Israel baa qoraya arrintaasi ma muuqato Netanyahu waxa leeyahay taasi waxay ku noqotay dhabar jab bal waxa soo baxay taa wax ka duwan oo ah in dadka reer Iiraan ay isku duubteen isku duubni weyn ay muujiyeen dadka reer Iiraan hadda inay yeesheen qadiyad midaysan oo inay dagaal balaaran oo shacab ka dawlad ciidan ayagoo dhan midoobeen sidoo kale ay saameyn ku yeesheen shiicada kale oo gobolka Netanyahu marka meeshan waxa laga fahmayaa in dagaalka sidii uu maleynayay si ka duwan uu ku noqday dagaal nidaamkii difaaca Israa'iil fashiliyay nidaam dhibaato weyn geystay dhaqaalihii Israa'iil saameyn ku yeeshay inuu noqday ayuu meesha soo saaray taas oo macnaheedu ay tahay in ay adag tahay hadda in Israa'iil iyo Mareykan dagaalka ay xukumaan dagaalka yaa xukuma marka qubarada militariga waxay leeyihiin dagaalkan hadda waxay gacanteedu ku jirtaa Iiraan waxa uu kaliya dagaalkan ku joogsan karaa
إيران أو فهمت تنازلات كمرايكن وسمينية أو إيران تنازلش هديتها أي دعويسو قاب كلابات دجال كان كوجوك سنة يا وحى تاي إسرائيل مرايكن إن يقول شيكتان سيدا ترام لقد دبني هذا عرب كيسة وليه شمالين بجوجينيا وهذا لا نصوص إيران إلى هذا واحد هذا لا صعد منا ترام بالله حرير نتياهو بالله حرير عد وهذا لا قدوميها برلمان ك إن إيران أي عدي أي شيء إنه وهذا الله يلانيان أفيانك برلمان كدلك إيران وحى وشيء إنه بنتاي أو واحد هذا الله ولا شيء ترامب ولا نتنياهو ولا عد كله إنه سنجرين أو إيران هذا الباب ذي وهذا الله ضرنا وكحرنتاي إيران مركو واحد دلبنايسا مقدو waxay dalbanaysaa in kaabayaasha dhaqaalaha burburka la gaar la soo celiyo sidoo kale in awoodeeda dawladnimo la qiro intaas wixii ka soo hara ma ogolo sidoo dagaalkan ku joogsan karaa marka dagaalkan Mareykan Israa'iil ay yiraahdaan guul baan sheeganay oo inay degdeg u joojiyaan ama in ay ogolaadaan in ay ka garaabaan dhibaatadii la gaarsiiyay dadka reer Iran taasoo marka la shuruudo adag ay la socdaan oo adkaanayso haddaba waxay qubaradu tilmaamayaan dagaalkan inuu waqti dheer qaadan doono ilaa iyo ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil Ehud Barak uu sheego dagaalkan inay suurtagal tahay in uu qaato waqti dheer sidoo kale uu ku dhamaan karo natiijadii dagaalka Iraq Afghanistan iyo Vietnam oo intaba Mareykan iyo reer galbeed ay ku qasaareen haddaba maxay noqon kartaa natiijada macado dagaalka hadda xaguu maraya caawa Iran wali waxay duqeyn ku wadaa bartamaha Israa'iil sidoo kale Hezbollah waxay duqeyn ku wadaa waqooyiga in Israa'iil iyo Mareykan iyana duqeyntii way wadaan inkastoo Trump uu sheegay in kaabayaasha dhaqaalaha Iran laga joojinayo duqeynta Iran iyadu sama joojin doonta dhankeeda wax jawaab ka soo baxay heshiis ay aqbashana malan laakiin waxa meesha ka baxay 48 saac ee uu qabtay Donald Trump waa 48 saac haduu dhamaan lahaa dagaal la qaadi lahayn wada hadalna sheegi lahayn meeshaas fadeexa kala dhici lahayd caaw markale ceeb kala taagan iyada laftirkeeda iskaga dab yimid Iran way beenisay heshiiska uu ka hadlayo iyo cid la hadashay inay jirto barnaamijkii habeenimo waa inaga inta tan iyo kulanti dambe nabadgelyada Ilaahay dushina haato assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh